وايو وعبدي ايه قفل سو قدب عبديو البابكم ما حدناه ما انت صونكيها راد بو يقول ريد دي ملا سحورتي بانad biyo kugu filan cabin ها صوتي hurdadu inala tagtay maaha dirqibaynu ku suxuureynaa sheekha aynu aadimi gaaray adigana toosin jiray adigana xalay toole mooji si ay ka noqotay mar dambe un baan soo kacay waan daalanaa hurdada ayaa hore iigu iman weyday maanta miyaanad shaqo tagin horaad u soo noqotay dee rabadaanta shaqo badani ma jirto haddii salaada duhurba la eedaamo waa la kala rawaxaa gelinka horun baa la shaqeeyaa maryanay waa si fiican waxaanu afur ka dhigano oo aan caruurtana ku qadaysiiyo ma haya anigu maxaad noogu tala gashay maryanay xaalka waad arkaysaa baan filayaa waa rabadaan oo shaqadu way iska yar tahay yoomkiina maanta xitaa ma hayo waxbaba maan qaadan xaalku siduu doonaba ha ahaadee anigu horaan kuugu sheegay ilaahay inta ka sokaysa inaan adiga kugu tashanayno waad ii sheegtay laakiin maryanay waad igu adkaynaysaa ha igu adkayntay aqalka hore u gal oo waad arkaysaa inaanay waxba dhaxoolin waana rabadaanoo masruufku sidii hore uu ka badan yahay caruurtiina dhar ciideed bay naga sugayaan maxaa xala ilaahay ayaa inoo maqane maryanay ducada iyo cibaadaduna aanu badino waa run laakiin ducadu dee ficil ba u baahan tahay anigu saaka waxban u haystay inaad miiska noo saartay biilkii oo biil miiska la saaro horta miyaanay ka horreyn inuu jeebka ku jiro wareedha calaacalka iska daayo rabadaanta iyo ciidaba dee naga saar bal waan soo yar noqonayaa albaabka iska soo xidha albaabka oo xageed u noqonaysaa imika وانظر بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله هاي روغ وحا قال كوري دمدينو soo soco soo dhawow marina eede geeka dareeri soon anu sakay rahay eeda aan noogana soonku mar kasta oo uu kugu adkaado ajir baa kuugu jira eedo bal soo fadhiiso eeda aan ma hasanta ka aragahaaye hanuunga degantaa musalsalkii tama ka dhaafahaayo maaye alle eedo beryahani ma dhaafiya miyaa tidhi habeen kasta waxaan la socdaa musalsalkan asxaabaha ana ko jecel ee la dareera jare oo intaa rabadaanta miyaa la joojiyey musalsalkii jacaylka ahaa haa kaasal la socdo jare oo ma gabadh guri fadhida oo aan musalsal daawanayn baa jirta ilaa adigaa la socday haa eedo kaas filim faylahaay to hanuuma sirka badnaayta hartuugu daba shaqeeya jarto horta towntaa haa wallaahi filinkaasi qosol miidhan buu ahaa weliba inantuna way ku saxsanayd isaga laftarkiisuna nin hawl yar muu ahayn eed marin filmaantu unintan waalaan ka tala galeen hadle ma hayno ko unu ka fiiriyaan lama isqabo hadan walaal oo eed miyaanad ogeyn waxaan inay tahay matalaad oo inoo jilayaan may ku ogorto run lebaninka dhakahaayana suubigeek afur musuubiyaaso maya eedo cabdi baan biilkii ka sugaya allah oo may geek shaqada ma ku kooyne afurkiiba dhawaha maya wuu soo yaro noqonayaaye adigu afurkii ma soo diyaarisay xaskor saaray sambuuskiya dhimana balaayareertiyaa ku kutabay laakiin wali ka war siday qudaartay adgadaasi ma isku dhaaftay dhibaata ma jirto eedo suuqiyo igu fogaaday iyo shaqadii gurigaan isku wadi kari waayay allah uni eedkiin tooyni eed suuq ila in safaraan qudaarta oo qaaliga ee kiin ku daranba waa caadi eedo waqtiga rabadaantana khudraddu way qaaliyowdaa meelaha laga keenana roob baa jira eedo runtaa ana bahay khayrakiin dhaafe maryanay kumeedi way kan cabdi show wareerba kuma haysto filim baad iska daawanaysaaba oo haddaad soo fadhiisiisayna miyaanan filinka daawanayn korontadaba waxaa nalooga goostaa ilaan adigaa nagu kordhiya biilka waar anigu waxba biil koronto kugumaan kordhinni haddaad doonto orodoo iska soo jar gudcurka cid adig kaaga darani ma jirtee waxaagu waa ciqaabad aniga igu tala gashay maryanay waar iminka gurigaaban kuu fadhiyaaye waa maxay ciqaabtan aan kugu hayaa aaway carruurtiiba malcaamadday ku maqan yihin waar heedhee waa maxay malcaamaddaad ka hadlaysaa malcaamadii iyo iskuulkiiba sow kuwii ka hadhay keen lacag iminka baan ku celiyey ii sheegdee haddaa halkay qabteen qaarna gurigay kuu dhex jiifan iyagoo baahan qaarna daanaa iska caydhiyey ma karayaanu qayladoodee wagar oo carruurtaad baa dibadda isaga caydhayso markaasaad filin daawanaysa waa la yaaba cabdiyow dood haynagu furine carruurtu ma dheeree waa maxay waxaanad bacda ku sidaa istakfirullah ilaahow soonta naga aqbal waar baliidhii bacda maxaa ku jira hoo waa afur iyo cashee inoo kala dhig oo heedhee ma masaajidkaad ka keentay maasha allah maxaa ka wanaagsan kolka ay xaaskaaga quruxda badani ay afurka kuu diyaarinayso soonkuba culays ma leh waxaad ku faraxsan tahay durbina gurigina jaarad ka noqda soo maaha
qurxee ma adigaa jaariyad lagaa dhigay boqoradii gurigaaba tahay halkii aniga shaqaale layga qaban lahaa ayay reerkiina igu shaqaysanayaan qurxee laguguma shaqaysanaya odaygaaga aad jeclayd baad afurka u samaynaysaa meedu hooyo hooyo way hurudaa waa tii xanuunsanaysay idin kuna wada gelin aanay soomi karahayne aduu maanta maxaad wadadaa waan ku caawinayaa de ma shaqaalaha baad u baahan tahay haddii aan anigu ku caawiyo leedhada naga jijabin caawimaad lahaa nood ujeeda inaad nagu shaqaysanaysaan maasha allah bal eeg udgoonka iyo quruxda saambuusaha adii samaysay ma gabadh kale ay samayn kari lahayd waxan keen kugu gura bileedhkee naa kalaa maxaa tidhi maxay kuu samayn lahayd saliidda ha igu daadine soo igumaad lahayn in shaqaalo lay qabtay yahay ma cunto gabadh kale samaysaan cuni lahaa haddaa saliiddaa kulinaya kaa daata doonaysaa faysalowe naagii waxaa dhagahaygaasi ma maqli karaan dee waayahaygadaa shaqaaliya waxaasaan u baahanay ilaan cuntada ii soo samayn haddii kale run baan kuu sheegaya iyo in laygu shaqaysanaye ma naag kale cuntada ha ku siisaan kudha anugu dhiiga ha igu kicinu haye ha isgubin anna ha igubin keen noo diyaariya afurka intaad saambuusa duubaysee nin wanaagsan baabad iska dhigaysaa oo caawinaya wanaaggu sawkaad igu dooratay maha quraxay waa adigaa waalkii jiidhaa ku guban basaliidan kulul inaad ku farxdaheed odaygaagii oo kula shaqaynaya sawtan maaha farxaddii baa lagaa qaaday walaasha yaasimiin meeday iyadoo telefoonkaada sidaal kaa sii socotay ilaa anigan u shaqaynayo jaariyad baaba iga dhigataye sidaad moodday maha quruxay iyaba iminka hadday timaado ay soo gasho hawsha dhinaceeday ka gelaysaa taloma meelahaasi ka soo afuraysaa mise waynoo iman gabadhaasi asalaamu calaykum yaasmin raalli iga oo xilligii afurkan ku yimid calaykum asalaam walaal waaban sii degdegsanaa afurkii baa dhawaaye yaasmiinay bishii 5 bay maraysaa xilligaana kiradii bisha lagaama hayo galabta iyadaan u socday inaan qaado waan ogahay in laygu leeyahay waad soo ogtahay inaan khasaare galay oo lacagtii baddaygiga degtay waan la socdaa taasi si cudurdaar u noqon maysa in lacagta kiradu ilaa xilligaa maqnaato ilaa in carruuraa lagu beeliyaayo walaal hore igumay baaqan jirinay qadar baa dhacay taasun baana keentay dahabkaygii aan iibiyeyna hooyadii baan ku daweeyey waayay goormaad bixinaysaa rabadaanna waa lagu jiraa ciiddiina way soo gelaysaa oo intaa ka badan lama sugi karaye inaan guriga idiin fasaxo ayaan go'aansaday maadaama aanan bixin karayn kiradii hoofuraha yaasmiinay sidaa ha odhane in badanna guriga waad ku jirtay kiradana si wacan baad u bixin jirtay bal bil iskaga sii jir bil maxay walaal bil bilaa kira ah oo wanaaggaagii lagugu siiyey walaal aad baad u mahadsantahay xataa bishaasi hadday dhammaato ayaana bixin kara inta xigta yaasmiinay bishaa anaa kugu siiyey bilaash laga yaabay inaad soo kobatee fursaddaha iska lumin walaal ma bixin karo waad aragtaa inaanay meheradda waxba dhex oolin dayn xitaa meelaan ka soo qaato waan garan waay keen furaha maxaad noogu sheegi weyday intaad ilaa bisha 5 iska dhex fadhiday waan idinka raalli gelinaya waa qadar alleh waad soo kaban kartaa baan islahaa khasaaraan ka soo kaban waayey baa dhacay markaad isqiyaastay baad ii sheegi lahayd xilli hore si aan kiro ugu raadiyo dukaanka waan ka xumahay waxaan islahaa waad maarayn kartaa hadda se run baa timi walaal bishan hadda waa 5 u malayn maayo kire inaan u heli karee bal iska dhex fadhiyo haddaad u hesho heshay haddii kalena furaha ay keen bisha dambe intaanay bilaaban aad baan kaaga mahad celinaya balse ma karaayo inaan ku sii jiro waayo hooyaday xanuunsanaysa aanan ka maqnaan karin hooya allah caafiyey meedaad weli la noosha walaal furaha maad iga qabatid buuggan maxaa u isticmaashaan oo maanaad i weydiinaysaa oo adi ma garanaysa miyaa waa buuggii bagige waan garanayaa waxaan se hubinaya in la isticmaalayo in kale hedhe aan mid kuu sheego shaqaalihii haddeer waa is wada barannay waxaa noo dhiman waa adigoo la wareega xisaabaadka dukaanka oo dhan diyaar baanu ahay inaan shaqada la wareego adna waad iga arki doontaa insha allah kuwan ma aragtaa waa warqadihii cashuurta iyo kuwii korontada sax dukaanka wax cashuura iyo koronto laguma laha soo maaha dhammaan waa la wada baxshay biilasha adna waxaan kaa rabaa haddeer bil kasta inaad wakhtigiisa bixiso sax waan samayn doonaa maxaa kale kuwa kani waa kuwii biyaha buugganna waa kan haddeer kuu sheegaya waa kii baanka ayaan ku tusaayey 3 buugay halkan kuu saaran waxaa ku diiwaangashan dukaanka wixii yaalloo dhan si wanaagsan bay u nadaamsan yihiin waad og tahay maan filaya haddeer inay ciiddi nagu soo dhowdahay haa si wanaagsan dumar badan baa imanahaya oo dukaanku wuu buuxsami doonaa la soco kulligood dhar ciid ma wada doonahayaan shaqaalaha inaad caawintaa lagaa rabaa oo indhahaaguna furnaadaan dharka maqaar la sii dalbaday baa ku jira dhowr gabdhood baa iga sii dalbaday farshaxanka la gaara inaan ugu talo dhar ay halkan ka sii doorteen magacyadooda goortay imanayaan iyo haddii ay lacag bixiyeenba sooma qorna oo maxay u qornaan waayeen anaa haya edha markay yimaadaan ay lacagta bixshaan ayaan kugu soo wareejinhaya waa sax waynu u diyaargaroobaynaa hedha ogow shaqadan waxaad u tahay qofka u muhiimsan kulligeen waan kula shaqaynaynaa ka soo dhalaal baan ku yidhi hawshaadan xisaabaadka igu hallee taas si wanaagsan baan u maamuli doonaa aqoonteedana waan leeyahay mar walba waxaa jiri doona dalabaad cusub qaar baa hawshooda hore u dhammaan doontaa aad taa ula soco waayahay aqoontayda xisaabaadka horaa loo tijaabiyey adna kalsooni baad iigu yeedhatay
waxaan se filayaa dukaanku inuu ka nasiib badnaado kuwa magaalada. walaalkayow anigiyo hooyaday wixii aad taageero nooga baahato waa kula garab joognaa. dhankayga waa igu kalsoonaan kartaan. sidoo kale dhankaygana waad sukaaya hallayn kartaa. waa sidaa insha allah. mushaharkaagu waa $200 inta hore aan uga hadalnaa filaya. waxaan ku weydiiyey shaqaaluhu maalinta ciidda abaalmarin miyay leeyihin? ikraanay kaale hooyo ilaahay baaba ku keenay. hooyo maxaad xirxiraysaa? waa lacag yaroo sadaqaahe hooyo labadaa qof ee bannaanka taagan u dhib. balkeen gacan furnaantaada cid gaari kartaaba ma jidhee. ikraan hooyo miyaanad ogeyn in sadaqadu maalka barakayso? hooyo intaba ma labadan qof oo kaliya la siinhayaa? haa mar haddaynan masaakiin badan wada afurin karayn waa inaynu lacagta bixinnaa. laakiin hooyo soo ma badna lacagta aad bixin haysa. ikraan dhulkaad wax ku soo baratay malaha sadaqada laguma bixin jirin. hooyo sadaqadu waa wax aakhiro kaaga horraysay ha dhayalsan. insha allah edha wax badan baan kaa bartay. waxaan rabay inaan kuu sheego wiilka aan shaqada qoray waxaan ku wareejiyey dhammaan xisaabaadkii oo dhan. ma inankii cusbaaba oo markaa aad ma u hubsan ninkaad qasnadaadii oo dhan hooyo ku wareejisay? hooyo waaba shakhsi aan dhihi karo wuu ugu wanaagsan yahay. edha markaan kala sheekaystay hawlihii ganacsiga waxaabaan isdhahay waa fariid. aad isha ugu hay waxaadse yeeshaa hooyo haba yaraatee sadaqada ka bixi meheradda. edha hooyo waaba ilaabee ciidda ma kuu sameeyaa toob cusub oo aan dookhayga kuugu talo. ikraanay kaftan maahee ciiddu markay soo gasho aad ugu soo jeeso shaqada meheradda. intaan dadku igu soo badan farshaxanka dookhayga aan kuugu sameeyo hooyo. teeda kale inta ay quruxdaada eegayaan yaan lagu dhicine ka feejignow. edha maama sidii carruurnimadaydii baabad ii dardaaraysaae. oo ma inaad weynaataad isu haysataa xaggayga weli waad ii yar tahay. hooyo weli iigama jawaabin inaan dhar ciideed kuu taliyo in kale